Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan idinkala soo hadlaynaa waa janaalkeenii aan ku baranaynay koorsaha luqadda Ingiliishka. Caawa codsiyaalo badan ayaana soo weydiistay tenniskii baxay inuu aanan ku soo celino. Asxaab badan oo asxaabteena ka mid ah ayaana soo weydiistay, ama arday ah ama dhalinyaro ah, rag iyo dumarba. Waxaan rabnaa hadda waan ku soo celinaynaa. Waxaan ka bilaabaynaa tenniska hore. Waxaa la yidhaahdaa present continuous tennis. Present continuous tennis. Present joogtada, continuous socota, tennis waa goorta joogtada socota. Waa wixii dhacayo ama falka dhacaya hadda aad hadlayso. At the time of speaking ayuu dhacaa. Definition qeexidda. Definition qeexid. waxaa imaanaysa dhow su'aal ah divine present continuous tense, ama what is the meaning, waa maxay macnaha present continuous tense, goortada joogtada socota maxay tahay macnaheeda? Jawaabteeda waxaa la rabaa inaad dhahdid the present continuous, goorta joogtada socota, is used for, waxaa loo adeegsadaa ama loo isticmaalaa an action fal which is happening, kaasoo dhacaya at the time, waqtiga ama xilliga of speaking ee la hadlayo. Jawaabta intaasoo keliya. Once again, the present continuous, joogtada socota, is used for, waxaa loo adeegsadaa ama loo isticmaalaa an action fal which is happening, kaasoo dhacayo at the time, waqtiga of speaking ee la hadlayo. Full stop, jokes meesha ku dhamaatay ka. The auxiliary verbs. Tennis oo dhan waxay leeyihiin ficil caawiyaal ama helping verbs waa la yidhahdaa. Mar waxaad dhihi kartaa auxiliary verbs. The auxiliary verbs, ficil caawiyaasha are oo tenniskani waxaa ka mid ah is, are. Waa saddexdaas, is, are. Bal si fiican u dhugso. Formation, qaabka loo sameeyo. Subject waa sameeyaha plus oo lagu daray subject waa sameeyaha plus oo lagu daray is, are plus oo lagu sii daray verb falka plus oo lagu sii daray ing-da plus oo lagu sii daray object. Markaas waxaa ku soo baxaa tenniska aragtid oo ah present continuous tense. Examples, tusaale aan qaan. For example, tusaale asoo ah tusaalaha affirmative form. Waxaa jira 4 nooc: affirmative form, question form, negative form, question, negative with question, waa dhihi kartaa, ama question with negative, ama negative with question. Jumladii oo ah sida affirmative formka, I am learning English now. I am learning, waxaan baranayaa Englishka now. Haddeer ayaan baranayaa Englishka. Just what? I am learning English now. Hadda ayaan baranayaa Englishka. Nowdaas waa isaga dartay, laakiin lama baano. ing haddii raacaan iyo verb to be-ga waa inaad ogaataa kaas inuu yahay present continuous tense. Muhiimadda kaas waa I am learning English now. Hadda ayaan baranayaa luqadda Englishka. He is drinking, asaga wuxuu cabayaa a tea, shaah ayuu cabayaa. He is drinking, wuxuu cabayaa a tea, shaah. Number 3, she is eating, waxay cunaysaa iyada a rice, bariis. She is iyada eating, waxay cunaysaa a rice, bariis. She is eating, iyada waxay cunaysaa a rice, bariis. Wiil waa socdaa. Haye, I am learning English now. Affirmative waa. Affirmative waxaa lagu dhahaa change u bedel question form, su'aal ka dhigbo. I am learning English now, su'aal u bedel. Maxaa dhehe amle soo hormare adoo adeegsanaya capital letter. Xaraf markaa bilaabaysid start with capital letter. Always, mar walba iska jir. Xaraf markaa qoraysid ama aad bilaabaysid use with capital letter. Xaraf weyn ka bilow. Adeegso xaraf weyn. Su'aal haday tahay calama su'aal ha ka tegin, question mark. Jawaab haday tahay full stop ha ka tegin. Negative sidoo kale waxay leedahay full stop.
wuxuu yidhi marka question form am I learning English now hadda ma baranayaa Englishka anigu hadda ma baranayaa Englishka am I learning English now number two is he drinking asaga ma cabuhayaa ee tii shaah miyuu cabuyaa is he drinking ee tii shaah muu cabuyaa number 3 is she eating miyay cunaysaa ee rice bariis miyay cunaysaa iyada is she iyada eating ma cunaysaa ee rice bariis haye question form waa negative form aan qaadan asoo didma ah didmada qayaxan I am not learning English now I am not aniga learning aniga ma baranooyi Englishka now hadeertaan Englishka ma baranooyi negative waa jumlada waxay tahay negative waa didma waa I am not learning English now hadda ma bartooyi Englishka he is not drinking a tea asagoo shaah ma cabooyo maya negative waa jumlada he is not drinking ma cabooyo a tea shaah she is not eating iyada ma cunayso a rice bariis haye waa qaybta afraad question with negative form su-aal oo diidmo wadata mar waxaad dhigi kartaa negative with question form diidmo su-aal wadata samele waa amanti I learning English now amanti I learning miyaanan baranaynin Englishka now hadda aniga miyaanan Englishka baranaynin miyaanan baranaynin Englishka hadda miyaanan baranaynin anigu Englishka isn't he drinking miyuusan cabinin asaga ee tii shaah miyuusan cabinin isn't he drinking ee tii shaah miyuusan cabinin amanti I learning English now hadda miyaanan baranaynin Englishka amanti I aren't you isn't he isn't she isn't it waxaasoo dhan waxaa leedaha question with negative ama negative with question amanti I learning English now hadda miyaanan baranaynin Englishka isn't he drinking a tea shaah miyuusan cabeynin isn't he miyuusan asaga drinking uu cabeynin a tea shaaha isn't he drinking a tea shaah miyuusan cabeynin isn't he drinking a tea shaah miyuusan cabeynin isn't she eating miyuusan cunaynin a rice bariiska miyuusan cunaynin iyada waa kaa caawo halkaasaan kusoo gabagabeynay waa tenniska hore waa sii wadana insha allah ardayahay iyo dhammaan asxaabteena gudaha iyo dibadda ku noolba halaga faa'iidaysto tenniska waan kusoo celinay codsi naga yimid awoodaan ugu soo celinay qaar badan asxaabteena ka mid ah ayaana soo weydiistay inaan kusoo celino tenniska sidoo kale haddaan tenniska dhammaynana waxaan gali doonaa active voice iyo passive voiceka grammarka ugu muhiimsan English waxa laga barto waa grammarka ni word isma ka baxsana insha allah ay sheekooyin aad iyo aad cajiib ah iyo vocabulary badan ma sha allah maayo real culus insha allah subscribe kana hanaga ilowna dadku cusub soo ka like tana hanaga ilo like to waa dhiirigelinteena asxaabta cusub waxaan leenahay subscribe ka noo saara gamleelkana furo si mar walba ay kugu soo dhacaan casharada aan soo dhigayno channelkeena